kulankan oo ay ka soo qayb galeen maamulka degmada Beledweyne ayaa looga hadlayay dagaalada ka jira deegaanada ku yaala xadka gobolka Hiiraan oo la wadaago kilinka shanaad ee dhulka ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya. qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay kulanka ayaa sheegay in dagaalada ka soconaya deegaanada Deefo Kabxanley ay ku jirto gacan saddexaad iyagoo ku eedeeyay ciidamada liyu booliska ee dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. inta mas'uuliyiina oo ama Itoobiya leh ama Soomaaliya leh ama wax garanaysa geeska Afrikada bari joogto waxaan u sheegaynaa inuu ciidamada liyu boolis oo Cabdi Maxamuud Cumar uu hogaamiyo oo dowladda deegaanka Itoobiya kililka shanaad inay dulum aan geed loogu gaban ay Hiiraan iyo Galgaduud ay ku hayaan. waxaan adduunku u sheegaynaa inaan ka indhaqasad doonin. waxaan adduunku u sheegaynaa Cabdi Maxamuud Cumar haddii uu shaar dowladeed gashanay ama nidaam iyo ideolojiya dawliga ku shaqeynay inuu ka baxay oo nidaam qabiil qaatay. dhibaatada ka taagan Hiiraan iyo Galgaduud inta ka dhaxaysa dhibaatada ka taagan oo ay nagu qabteen nimanka shaarka dowladda Itoobiya wato ee Maxamuud Cumar horsaadku u yahay ee loo yaqaaniyo booliska ayaan maanta isugu soo baxnay. adduun weynaha waxaan u sheegaynaa jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa midowga Afrika ururka AU-da jaamacadda Carabta waxaan u sheegaynaa Cabdi Ilay aase qabiil inuu ku socdo. Cabdi Ilay waxa ku socdaa aase qabiil adduunku ha arko. maanta waxaan isugu soo baxnaa haddii aan nahay haweenka gobolka Hiiraan dhibaatada haysa dadkeena maantida ah oo xoolaaleyda ah iyo beeraleyda xadgudubka ay ku soo sameeyeen ciidamada Itoobiya oo liyu booliska magacooda la yiraahdo. aad waxaan ugu xunnahay inay carruur dileen, aad waxaan ugu xunnahay inay xoolo dhaceen, aad waxaan ugu xunnahay inay haween ay kufsadeen. aad iyo aad damiirkeennuna ma ogolo waxyaalahaas inaan aragno oo ka aamusno. waxaan u sheegaynaa dowladda Itoobiya inay naga qabato ninka la yiraahdo Cabdi Cumar. anagana haddii aan nahay shacabka reer Hiiraan uma dul qaado doona arrimahaas haddii aan wax laga qaban. ninka la yiraahdo Cabdi Ilay oo dad maate oo xoolaaley oo maxay ahaydina duurjooge hasuuqay oo dadkeenni laayay. waxaan maxay ahaydina aan dowladda sharafta leh oo Soomaaliya aan codsi ugu nahay ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud inuu naga qabto ninkaas Cabdi Ilay la leeyahay. waxaan maxay ahaydina qiimaha uu leeyahayna ma laha inuu naga qabto oo raggeena dowladda oo maxaabiista oo haayo oo noo fasaxo iska celin anaga Itoobiya waa ninka la yiraahdo Cabdi Ilay anaga waa isna qaana ogaadeen saan u galnaa iyagu waa Cabdi Ilay ma dhigaysan karo Xasan Sheekh Maxamuud hanoo fasaxo ciidamada hanoo fasaxo waa iska celinaynaa. mas'uuliyiinta maamulka degmada Beledweyne waxay ka hadlayaan dagaalada ka socda deegaanada ku yaala xadka dalka Itoobiya oo la wadaago gobolka Hiiraan. shirkaas oo ku saabsan dhibaatada ka dhacaysa meelaha maaragtay deegaanka xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya oo ay dhibaato waaweyn oo sanado badan soo socotay. waxaan ogsoonahay annaga in gobol nabadeed la dhigay ay socoto muddo ka badan bil oo la yidhi maaragtay nabad baynu qaadanay. dadka reer Hiiraan qabaa'ilada intooda badan waxaa la iska saaray guddi laba ah inay nabadaas maaragtay booriyaan oo ay dhaqan geliyaan. anagoo nabadii ku maqan ayaa waxaa la soo weeraray Gurcadda, waxaa lagu dilay dad. waxaanu soo weeraranayn waxa waaye wax kale ma aha, waa ciidan liyu boolis. liyu booliska waxay ka tirsan ciidanka maaragtay kilinka shanaad ama dowladda deegaaneedka Soomaaliya ee laga xukumo Jigjiga. waxaan ogsoonahay in ciidamada Itoobiya ay ka mid yihiin ciidamada AMISOM. waxaa halkan jooga sector 4 oo ka kooban ciidamada Djibouti iyo ciidamada Itoobiya oo ilaa Maxaas ilaa iyo Booliburta ilaa Jalalajire. waxaanu rabnaa nidaam dowladnimo, waxaanu rabnaa nidaam darisnimo, waxaan rabnaa inaan dhowrno qawaaniinta u dhigan dalalka caalamiga iyo dunida inteeda badan. runtii maanta waxaan soo imaanay dhibaatada ka dhacday xuduudka u dhaxeeya degmada Feerfeer iyo degmada Beledweyne. taas ay ku soo xadgudbeen ilaa 18 kilomitir kilinka shanaad ciidamada liyu boolis. liyu boolis waa ciidan federaalka oo ka tirsan oo mataqaanaa kilinka shanaad. mas'uuliyiinta kilinka shanaad sida mudane Cabdi Cumar waxaan ugu baaqaynaa inuu ciidankiisa dib u laabto
dowladda Etoobiyana waxaan u sheegaynaa aan ka codsanaynaa wali in arrintaas soo farageliso haddii soo faragelina in xuduudda la isla galaa ogaato waxaan ugu baaqaynaa inuu ciidankiisa dib ula laabto cabdiweli xuseen tawakal TV-ga Universal beledweyne